Hello everyone, waa idin salaamay. Magacaygu waa Qalboof. Haddii aad channelkan ku cusub tahay, please subscribe iyo share iyo like oo noo dhiirigelin mahadsanid. Maanta waxaan isla eegaynaa weekly recap-kii weekan week wacan buu aad u ahaa. Nimay ahawda horta niyo suuqan haddii ogeyn meesha laga socdo iyo meesha loo socdo bro iyo weekly profile-ada. ICT wax badan baa ku dhiman. Iyo ICT-na ka weyn ASEAN hay la qaaday. ASEAN waa no confirmation. Dee mantar saxanaysan oo meel lagu socon oo trading plan lahayn oo risk management lahayn oo rulekaaga raacayn waxaa arkay nimanka akoon yar haystaan lutwin saaraya dhahaya hal trade aan ku baasiyo no bro mad garin level aad hal trade akoon ku baasiso weli akoon mad baasi saaxiib si badan baad forward ku jirtaa still waa madow baa kaga jira waxaan garanayaa yar hadda wallahi I think 2 bilood ka hor bigo soo biiray suuqu iska diirabay maanta akoon baa uu gacanta ku hayaa marka saaxiib anu taladan qof siin karo suuqa waxa weeye oo niman yahow wada suuqan ay iibinayaan never give up risk management isticmaal trading plan isticmaal biaska iska sax weekly profile-ada ogow jimcaha intriga baxa ogow AMD-da ogow waxaasoo dhan bro qofka ku mantarka la xidhiidh haduu qofka mantarka kuna dee uu ku caawinayn oo maana uu sun ku galayn oo ku hagayn waayo dee waqtiga iskaga qasaarinaysa loo joogtaa gambi badanaa Soomaalidu ICT-na waxay ka barteen wax free iyo meelaha yaalay ku barteen oo waxay eegayaan ASEAN loo qaaday inay trade-kii galaan shift ka raadsadaan displacement loo no suuqa lagu ratibo loo socdaa marka dad lagu ratiga ogeyn suuqan waad ku qasaaraysaa marka haddaynu soo suuqan biaskeenii weekan haddaynu soo dhiiga soo waxaan rabnay in loo tago meel in loo tago waxaan doonaynaa dhiiga soo in loo tago in nala soo qaado buy-side-kaa sare marka hore waxaan rabnay in fair value-ga kana loo tago in nala soo qaado buy-side-kaa sare in suuqu raash soo bixiyo intaas ma dhicin suuqu isniinta buu furmay buy-side-ka meel taad gareeyay reaction baa laga bixiyay haddana bigas la taad gareeyay la soo sal gareeyay marka saas ay anaga biaskaygu uu meeshan taad gareeyay OB weekly weed sidoo kale biaskii taasi waxay ahayd dhiiga soo ahayd sida tan u jeedaana tan euro USD bay ahayd oo iyadana waxaan rabay in ardayda wax la wareegayay iyadana waxaa laba niman wax loo socdaa sell halkan baa loo socdaa oo la taageeranayaa oo suuqu wuxuu ka tegay fair value-ga week hore ay after week inoo sameeyay dead waa loo sell gareeyay jimcihii loo buy gareeyay marka suuqu buy sell-kan oo soo socday soo qaadayay sell ma la soo qaaday khamiistii khamiis iyo jimcaha bay noqotay in yar faysal baxay marka mar haddii sell la qaadan inaga si doon lagu ritugo waa buy sell-kan sare halkan fair value-ga baa ku jira lagu ritugo kaa sareeya hadda ku sheegay lagu ritugo kaa sareeya wax lagu ritugo hoose waxaa jira fair value-ga monthly ka hooseeyo ma jira laakiin lagu ritugo kan baa kaa sareeya buy sell-kan baa kaa sareeya buy sell-ada ma kaa sareeya kaa sareeya fair value-ga iyadana halkan 1 hour-kii uu biyada bartan ku jira la soo qaadaya waxaasoo dhan bay kaa sareeya sidoo kale biaskeenii jimcaha aynu ardayda la wadaagnay hadaan idinla wadaago isagana wuxuu ahaa markaan soo dirayay jimcihii wuxuu ahaa waa kan thinkii waa kan jimcaha weekan soo dirayay waa kan waxaan lahaa euro USD waxay joogtaa oo biyihii kale barkiisa joogtaa main torosha in reaction laga bixiyo faysal baxo oo macquul oo drone lagu dhigay la taad gareeyo buy-side-kan sidii way dhacday isagana oo la taad gareeyay sidoo kale eurona iyadana waxaan lahaa niyow iyadana waxa la joogaa meel fair value-ga la joogaa oo daily buy-side-kan oo la qaaday marka in reaction laga soo bixiyo iyadana waa macquul marka sidii way dhacday oo sidii waan soo sal gareynay haddaynu halkan tagno
haddaan halkan tagno waa kan DBS waxaan ii sheegayay maalinkan soo dirayay waxaa lahaa suuqa xaggan buu joogay nin waxaa lahaa waxaan doonayaa in buy side-kan laga soo qaado markii hore waxaa lahaa fair value gap-kan waan tegayaa laakiin laba way baa ii bannaanaa waxaan ogaa in buy side-kan la target garanayo oo isniintii markuu suuqu saa u furmay buy side-kan buu qaaday dad baa yidhi suuqa result baan u tumaynaa no OP weekly kaa sarreeya you know ma ogid marka weekly OP-gaas wuu socdaa marka suuqaas bullish buu saa ku ahaa wiiga jimco iyo khamiis baa lasoo gareeyey marka saas u ahaa sidoo kalena iyadana haddaan isla eegno euro USD iyadana euro USD haddaan isla eegno waa kan waxaan ku uri aniga suuqa wuxuu doonayaa in liquidity-gan soo qaado oo buy side-kan sare waxaa sidoo kale inaga hooseeya weekly maaha monthly fair value gap baa inaga hooseeya oo waa macquul in la soo qaado marka suuqa hadda meel uu reaction ka bixi jira isniinta wax laga yaaba in kan hoose la tago suuqa waddo kasta uu galo wayn la dhiyaal garanaynaa haddaad halkan u wala jeedaan suuqu wuxuu tegey daily fair value gap baa tegey meelahan ku jiray waa kan reactionkaas kusoo bixiyey wiigii hore reactionkaas kusoo bixiyey wiigii kasoo horreeyay reactionkaas kusoo bixiyey marka dad ogeyn meesha loo socdo iyo meesha laga socdo bro suuqan dee asian haddii hay lagu qaadaba iska soconaya sababtoo liquidity baa kaa sareeya dowlad arkaysaan jimcihii suuqu daadanay New York baa la bixiyay inta reversal ah markuu tegey meesha dee uu doonay inuu suuqa tago marka taasi wataa haddaan isla eegno intiriyadii baxay wiigan calaamidsano 3 4 khamiis jimco isniintii I think aanu isniintii bixin haddaan isla eegno intiriyadii baxay suuqa liquidity buu tegayey Monday isniin waxaa baxay salaasadii waxaa baxay intrigan baa baxay suuqa buy side-kan buu noo qaaday innaga sidii drone liquidity-ga la taageerinaya waa kan marka buy side lagu qaado waxaad ogataa waxay isweydiisaa liquidity-ga kaa sarreeya amba kaa hooseeya la taageerinaya waa xaggee haddii buy side la qaado sell side baa la taageerinaya marka A to B dii baad saxanaysaa in meel discount ama meel premium lagu joogo marka intaas saxato suuqa waxaa raadinaysaa trade drive oo ah oo 15 minute hadda imika 15 minute trade drive qurux badan bay noqonayaan sidoo kalena 15 minute 5 minute iyagana waa trade drive waxay dhagoonaysaa suuqa in lagu soo qadan halkan waxaa ka dhacay smart money drive baa ka dhacay sidoo kale bartan waxaa ka dhacay shift baa ka dhacay suuq wuxuu kugu noqday fair value gap buu kugu noqday uu qaaday salaasadii waxaad ogeyd meesha loo socdo sidoo kale wuxuu ku tiirsaday buy side sidoo kale waxaa lagu qaaday waxyaabaha gaad jacaydo ahaa in ASEAN lagu qaado ASEAN kuma tirirgareeyo way information sidoo kale I think in meelahan la dhayay ama kama New York la nahay lama qaadin marka taasi waxay ahayd salaasadii bay ahayd sidoo kale arbacadiina suuq wuxuu sameeyey isaguna wuxuu qaaday eagle highskan buu qaaday hadan 15 minute eagle highs ku jiraan eagle highskaasuu qaaday suuq muxuu sameeyey eagle highska markuu qaaday London dadka qaar baalkan entry ka galay dadka qaar I think entry ka galeen tobankaa bii la socdeen anigu waan galay waxaan liquidity sare iga jiro oo la taageerinayay suuq 50 bii bixiyay breakan baan ku xiray laakiin suuq wuxuu sameeyey halkan waan ka galay markaan arkay in eagle highs qaaday suuqu oo halkan eagle highs tahay suuq eagle highs ka qaaday waxaan sameeyey shift iyo fair value gap baan raadsaday noocii waxay arkeen inay dhaceen waxaa la dhahaa trade drive
fair value gapkan meelaha I think waxay ahayd March bay ahayd laakiin kan ma gelin saddexdii baan markii New York furmaan qaatay 30 bii baan taarget gareeyay dib bay ku dhacday dadka qaar baa bartan ka salgareeyay ka baygareeyaan jeeda oo intay dhaheen 3 drive London low baa la qaaday shift baa dhacay DD isla lagaga dhacay they know meesha loo socdo isagana arbacada intrigaas saa ku baxay khamiistana intriga isaguna saan ka baxay oo aad buu laakiin risk u ahaa wuxuu sameeyey waxa lagu tiirsaday 5 minute fair value baa lagu tiirsaday oo dee weekly profile-kaaga ku caddaaday ardayda they know weekly profile suuqan way ogyihiin baygan iyo waxaan ay bay garanayaan but hadduu waxaas leedahay London low la qadari gelis no meel baa lagu tiirsaday waxa lagu sameeyey shift 15 minute fair value gapkan baa lagu soo noqday no laakiin ma qaadan sababtoo waxaan ku qaadan waxa weeye bro adaarka fair value gap sidana kadamasta sababtoo haddii kan imika uu SL igaga dhaco oo kana la yimaado kana dib jeedi looga cadeedo waan ka qabaminayaa markaan trade-ka waan miskareeyaa amba waxaan sameeyaa amba fair value gapka ma sugaa haddii kan waxa sugaa in laygu soo noqdo OT-gan laygu soo noqdo sugaa goorta laygu soo noqdo 6.2 amba 6.7 kaasaan qaada sidoo kale suuqu salsaydadan buu qaaday meel buu kugu tiirsaday intrigaas ku baxay oo waxa ahayd khamiistii bay ahayd jimcihii intrigan baa baxay waxa la tegay daily fair value gap baa la tegay SMT baa bartan kaaga dhacay suuqu wuxuu tegay 15 minute fair value gap buu tegay Rodoniga 15 minute fair value gap ii dhaco suuqaas waan good inuu ii tegay inuu TP ku dhacayo marka wuxuu sameeyey 3 drive buu sameeyey oo in lagu laga qaadan shift 15 minute sameeyey asalka waxaan ka galay newskii markuu baxay kadib baan galay oo waxa la ogaaday newsku jeedu eedayo dad baa iyaga meelaha ka geliya matchkii no laakiin matchkii xaamo galo matchka suuq manipulation dhaca aduu ma noqon lagu dhitay la qadaaday ganta dhigna saas ku baxay jimcii beeradeedan ogin meesha loo socday meesha laga socdo still life suuqan waxba inaga dhiman marka lagu leeyahay mantar ku biirna marketing hadda ma sameynayo oo iskama gadayo kumalihiin ay kaalayaan oo lacag ka qaadayno bro mantar u tag ka faay kulli baad mantar ku biirto waxna ka qasaarin dadka qaar baa mindset ku fiican dadka qaar baa risk management ku fiican dadka qaar baa suuqi fahansiinaya bro haddii aad macala koon yar haysato koonka 5 keeyada istamatiran ugu percentage oo $10 koonbad ugu percentage oo $10 qaxaysa koon 5 keeya doonaysa inaad la 20 la 2 saarto bro macquul ma hadda inaad baasiso koonka wadad macad baasiso riski baasisay sidoo kale 10 baad haystaa risk management-kiisu maxaa la 1% waa 100 12 waa 150 bro think waxna ku qoriyin suuqana hayso trade baan leedahay management leedahay waxyaabahaas oo dhan ku diyaarsan yihiin mindsetkaaga ku diyaarsan yahay koona badan ay soo gubtay maalinkaagi bro oo baasinaysa hadda rabteen yar oo baasinaya dhan waa ka xumaa way gaadhaysaa dhe marka inoo inaad lagu riti marka qaar noqotaan waxba haddana sidaan trade plank noqon anugu bigshan waxaan qaatay so inkastoo aan jeclayn laakiin la wadaagay jeclaanaysaa say motivation in noqoto ninkan 20 qaatay bishan 20 aan qaataan filaya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aduu 20 wey afar trade baa asal iga dhacay laba trade-na briefan bay iga dhaceen
waa 16 tirar kalena wiil baan noqday. Haddii RR-kayga la xisaabiyo tirada qaar baa jira inaan 6 R qabtay, 16 R aan 18 R qabtay baa jira. Marka you know saaxiib wax saxan haddaad haysan biaskaaga kuu saxnayn oo tiradii aad qaladaad bay aad wixii reason-kii kaaga dhacay inaad qoranayn, mentorkaaga aad haysan, wallahi believe me meel ma gaadhaysid. Believe me saaxiib. Bal waxaad ii sheegtaa qof iskiisa wax u bartay oo waxaan maanta ICT loo dhigayaana oo ninkina cawaado soo wada mareen. Anigu waxaan xasuustaa maraan ICT iyo course aan ka qaaday. Tiir waxaana la yidhaahdaa waan daawaday sida casharada loo kala daawado. Maalintii 2 cashar baan ka saarayay saaxiib. Magarad niman Twitter iyo Instagram iyo Twitterada wax soo dhigana waan la xiriiraa. Mindset-kii waxaasaan ka saxday risk management waxaasaan ka saxan jiray. Maalinkii intay fadhiisatay baan jeclaystay inaan akademiyad furto. Ardaydeena way ogyihiin goortii waxaan bay garanayaan goortii salganayntii khasaaranayaan. Hadda badankooda koodna wala furan oo profit wala wadaan. Ka saaxiib anigu marketing ma jecli khayr baan kuu rajeynayaa. Guul bay noo rajeynayaa dhammaanteen ba saaxiib.